Haddii maanta waxaynu qaadanaynaa groupkii lixaad ee antibioticska marka 5 group oo hore aynu soo qaadan. Maanta waxaan qaadanaynaa groupkii lixaad. Groupka lixaad markaa waxa ka dambeyn doona groupkii toddobaad saas markaa antibioticsku inoogu dhamaanayaan. In yaroo kale oo ka kooban oo iska qaadanaa dawooyin oo antibioticska ka mid ah mararka qaarkoodna groupyo kala raaca. Marka antibiotics wixii bacteria lagu daweynayo dan dawooyinkooda wada haysata. Markaan caawa ama subaxan maanta ama xilliga aad dhegeysanayso muuqaalkan aad u eegto waayahay macrolides. Macrolides waa dawooyinka lixaad ama groupka lixaad ee tirsigeena aan ku samaysanay. Inta badan waxaa lagu daweeyaa pulmonary infections. Waxaa loo isticmaalaa primary to treating pulmonary infection. In sida koowaad ama qaybta koowaad marka ugu horeysa lagu daweeyo dawo infectionska ku dhaca sanbabka. Pulmonary waxaa la yiraahdaa wax kastoo la xiriira pulmonary sanbabka. They are bacteriostatic. Waa bacteriostatic waa kuwii xiri jiray inay samaysato bacteriyadu maxay protein ay samaysato in normal sida caadiga ah. Laakiin haddii la isticmaalo normal concentration macnaha xaddiga iska caadiga ah. Laakiin haddii la sameeyo highly concentration xaddigeega iyo ribanaanteeda kor haddii loo dalaco waxay noqdaan becoming bactericidal. Waxay noqdaan qaar silka la dagaalama ayay noqdaan. Although sidoo kale most antibiotics intooda badan should be taken on the empty stomach. Waxa la qaadan karaa caloosha maran waa la qaadan karaa. Erythromycin laakiin erythromycin oo dawo ka mid ah macrolideska weeyaan waxay cause garaysaa severe gastrointestinal distress inuu aad calool olol aad u daran ama caloosha inuu qofka aad u olasho. Qofka marka la sameeyo waxa lagu yiraahdaa waxaad la qaadanaysaa maxay it should be taken with food. Waa inuu qofku cunto ku qaataa waa inuu cunto maxay ku qaataa kadib cuntada markaa waa inuu qaataa. Inta ugu badan laakiin waxa la qaataa antibioticska cuntada kadib baa la qaataa. Laakiin tan waa inaad aad ugu adkaysaa qofka ku tiraahdaa haddaad calooshaada maran qaadato halis baad ku gelaysaa isticmaal cunto ka hor. Mechanism of action waa maxay sida aynu ku soo sheegnay waxay hoos u dhigtaa bacteria maadaama laga xirayo maxay maadaama bacteriada laga xirayo muxuu ahaayey inay samaysato protein macnaha waxay hoos u dhigaysaa growth-kii. Marka waxa la xirayaa inay bacteriadu korto. Blocking maxaa la sameeyaa protein synthesis. Samaysanka ay protein synthesis ku sameeyaan. Drug listiga waxa ugu hore erythromycin, clarithromycin iyo azithromycin, clarithromycin, erythromycin, clarithromycin, azithromycin. Intaas waa dawooyinka drug list ku jira. Waayahay marka dawooyinkan waxay u baahan yihiin iyaguna in maxay la sii kala dhigo. Laakiin baan ka yar horeysiino maxaa lagu daweeyaa tuberculosis-ka pneumonia, chlamydia lagu daweeyaa. Chlamydia waxay ku dhacdaa inta badan genital area waliba dumarka ay aad ugu badan tahay. Waliba dadka waa cudurrada lagu kala gudbiyo galmada lagu kala gudbiyo. Bacteriada xiiq dheertii pertussis ama weaving cough waxaa la yiraahdaa qofku tusaale ahaan inta badan ciyaalkay ku dhacdaa sababkaana inta badan ku dhacdo waa pulmonary infectionska oo inta badan qofku wuxuu yeelanayaa voice cough waxa la yiraahdo ilmaha markuu qufaacayo kala sidii hoarse voice waxa la yiraahdo macnaha ilmaha yar markuu qufaacayo kala wuxuu yeelanayaa cod sidii faraska kala ayuu yeelanayaa. H pylori Helicobacter pylori waxa la yiraahdaa bacteriada keenta gastritis-ka ama gastritis ama infectionska ku dhaca caloosha la yiraahdo gastriga ay inta badan Soomaalidu u yaqaanaan. Waayahay maxaa lagu daweeyaa dosage-keegu waa maxay wixii lagu daweeyo waan soo dhignay. Dosage-keegu waxa weeye azithromycin waxay ku timaadaa afka ama waxa mid afka laga qaadanayo inta ugu badan 250 ilaa 500 mg bay u dhaxaysaa waana powder. Mararka qaarkood for injection bay noqon kartaa. Mararka qaarkood maxay noqon kartaa injection bay noqon kartaa. Clarithromycin waa oral afka laga qaato macnaha waa tablet weeyaan. Erythromycin iyadana afka ayaa laga qaataa 250 ilaa 500 mg inta u dhaxaysa ayaa laga qaataa. Waayahay
maxaa marka inoo haraya waxaa inoo haraya unwanted effect ama side effect ama adverse effect intaas waa isku mid unwanted effect adverse effect side effect intaas waa isku macne waa dhibaatada iyo ceebta ay leedahay nausea vomiting effect waxay leedahay yalaaluga iyo hunqaaca ayay leedahay hypersensitivity waxay leedahay xasaasiyad bay leedahay hepatitis jaundice waxay leedahay calaamadii uu qofku saameynta markuu beerka la farageliyo ama infectionka keena jaundiceska keena micnaha midab wuxuu yeelanaya qofku indhihiisa wuxuu yeelanaya huruud jirkiisu waxa uu ekaanaya huruud jaundice baa la dhahaa calaamada kaadidiisu waxaa inta badan yeelanaysaa huruud bay noqonaysaa calaamada waxaa la dhahaa jaundice baa la dhahdaa waay headache madax xanuun and heartburn wuxuu yeelanaya qofku headache madax xanuun buu yeelanaya sidoo kalena laab olol buu yeelanaya oo inta badan waxaa la yidhahdaa maxaa keena laab ololka waxaa keena laab ololka bahashan waxay leedahay marka qofku qaato waxay leedahay laab olol waxaana leedahay distress waa aniga hore usoo dhiganay aan kusoo qaadanaynay muxuu ahaye inaanu qofku ku qaadan haba yaraatee wax muxuu ahaye cunto hadduu bilaa cunto qofkaas ku qaato qasab uu yeelanayaa inuu laabtu olosho calooshu olosho markaa qofka astromycin markuu qaadanayo ama dawooyinkan macrolideska oo dhan waxaad ku oranaysaa waxaad ku qaadataa cunto ku qaado intaanad cunin ayaa la yidhahdaa markaa qaybtaas aad baad mahadsantihiin qaybtaas intaas inaga dhamaatay qaybtii kale ayaa inoo bilaabmi doonta insha allahu tacaala